dalka Liberia waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Liberia waxa uu ku yaalaa galbeedka qaaradda Afrika waxaana xuduud la leeyahay dalalka Sierra Leone, Guinea iyo sidoo kaleeto Ivory Coast. Tirada dadka Liberianka ah waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 5 milyan oo ruux. Caasimadda dalku waa magaalada la yiraahdo Monrovia, sidoo kaleetana waa magaalada ugu weyn dalka. Luqadda rasmiga ah ee dawladdu ay aqoonsan tahay inay tahay luqadda dalkaasi waa afka Ingiriisiga ah. Hase ahaatee dalka waxaa laga adeegsadaa in ka badan 20 luqadood oo dadka dalkaasi u dhashay ay adeegsadaan. Dalkan waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay dalkii ugu horeeyay ee Afrika ka tirsan oo noqda mid madax bannaan, waxaana xorriyadiisa u qaatay sanadkii markii uu ahaa 1822. hase yeeshee Mareykanka ayaa dowladnimada dalka Liberia waxay aqoonsadeen 26 Julaay sanadii 1847. sidoo kale waa dalkii ugu horeeyay ee Afrika ku yaala oo gumaystihii Ingiriisku u aqoonsado dal madax bannaan. dadka madow ee Mareykanka degan badankood taariikhyahanadu waxay aaminsan yihiin in asal ahaan ay ka soo jeedaan dadka dalka Liberia u dhashay, waxaana Mareykanka la geeyay waqtigii ay socdeen dagaalkii sokeeye ee Mareykanka. taariikhdu waxa ay qortaa in dawladihii dalkan aanu ka hadlayno ee Liberia soo maray inay saameyn weyn ku lahaayeen dagaaladii dunida ka dhacay sida dagaalkii koobaad iyo midkii labaad ee caalamka. xukuumaddii xilligaasi Liberia ka jirtay waxay la safatay dawladda Mareykanka. sidoo kale dawladihii soo maray Liberia waxay goobjoog u ahaayeen ama xubno ka ahaayeen dawladihii aasaasay ururka wadamada qaramada midoobay ee loo yaqaano United Nations iyo ururka midnimada Afrika ee hadda loo yaqaano Midowga Afrika. dagaalo sokeeye oo ka dhashay afgambiyo ayaa sanadii 1980 ka dhacay dalkaasi, waxa uu galaaftay nolosha 250,000 oo ruux, waxaana barakacay qiyaastii in ka badan 8% dadka dalkaasi degan ee Liberianka ah. dalkan ayaana martigeliyay colaado muddo dheer soo soconayay. wadahadal nabadeed oo 2003 la iskugu keenay dhinacyadii isku hayay waxa ay keentay in la aasaaso dawladda haatan jirta ee Liberia. dawladdii heshiiskaasi ka dhalatay waxa ay keentay in dalka ay haweeney madaxweyne ka noqoto, waxaana uu noqday dalkii ugu horeeyay Afrikaan ah oo haweeney madaxweyne ay ka noqoto dalka Liberia. hogaamiyaasha la xasuusto ee dalkaasi soo maray waxaa ka mid ah Charles Taylor oo hadda u xiran dambiye dagaal oo uu galay intii xilka hayay. dastuurka dalka hadda dawladdu ay ku shaqayso waxa la qoray sanadii 1986. lacagta dalkan aynu ka sheekeynayno maanta laga isticmaalo waxa loo yaqaanaa Liberian dollar. gaadiidku waxay isku dhaafaan dhanka midig marka aad joogto dalka Liberia. waxaa mamnuuc ah in gaadiidka xawaaraha aadka ah ku socda dalka Liberia marka la joogo ay maraan dhanka bidix, halka loo ogol yahay sida dalkaasi qaanuunkiisa u qabo in gaadiidku ay isku dhaafaan dhanka midig. taariikhyahanadu waxay aaminsan yihiin in dalkan la degay laga soo bilaabo sanadkii markii uu ahaa 1461 ilaa iyo laga soo gaaro qarnigii 17aad. ganacsato u dhalatay dalalka Boortaqiiska, Holland iyo Ingiriiska ayaa la rumaysan yahay in dalkan Liberia ah aynu ka sheekeynayno ay u doonan jireen basbaaska, maadaama waagii horeeta dalkaasi loo yaqaanay dhulkii basbaaska. dhanka dhaqaalaha marka laga eego dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada ugu faqrisan, waxaana heerka shaqo la'aanta dalkaasi ay joogtaa 15% in ka badan. dhaqaalaha ugu badan ee dawladdu waxa ay ka heshaa maalgelinta ay ajaanibtu dalku ay ku samaystaan iyo dhoofinta dalagyada dalkaasi ka soo go'a. musuqmaasuqa oo dawladda haatan jirto la dagaalanto ayaa la aaminsan yahay inay sabab u tahay faqriga baahsan ee ka jira gudaha dalka dhaca galbeedka qaaradda Afrika. dalkan aynu ka hadlayno waana dalka labaad ee qaaradda Afrika marka la joogo ay maraan maraakiibta ugu badan, waxaana ka horeeya kaliya dalka Panama. qiyaastii 3,500 oo markab oo wata calanka Liberia ayaa dunida oo dhan ku safra, taasi oo ka dhigan in 11% maraakiibta badda ku safarta ay wataan calanka Liberia. dhanka isgaarsiinta dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada aadka looga adeegsado isgaarsiinta casriga ah. qiyaastii in ka badan 45% bulshada dalkaasi waxay isticmaalaan taleefanada gacanta ah ee casriga ah. taleefanada iPhone iyo sidoo kale shirkadaha waaweyn ee taleefanada soo saara ayaa ka mid ah taleefanada loogu adeegsiga badan yahay marka la joogo dalka Liberia. xagga diimaha dalkan galbeedka Afrika dhaca, dawladdu waxay aaminsan tahay diinta Masiixiyiinta. muslimiinta dalkan ayaana waxa ay qiyaastii ay kor u dhaafayaan 13%. Islaamka
waxaa la aaminsan yahay in dalkaasi uu gaaray qarnigii 16aad wax yar kadib markii ay burburtay boqortooyadii Songhai ee ka talin jirtay dalka Mali. Dhaqanka marka aynu ka eegno dadka waddankan waxa ay dhaqan la wadaagaan dadka ku tirsan qaaradda Afrika. Sidoo kaleetana dhaqamada u gaarka ah ee dalkan ka jira ayaa waxaa ka mid ah inay ku badan yihiin guurka gabdhaha aadka u da'da yar. Ninka qaangaarka ah dastuurka dalka Liberia waxa uu ogol yahay in uu guursado 4 xaas. Xagga ciyaaraha xulka qaranka Liberia inkastoo aan weligood koob qaadin haddana dhowr mar ayay ka qayb galeen ciyaaraha adduunka ee FIFA ay maalgeliso. Ciyaartoyda ugu caansan ee dalkan u dhashayna waxaa ka mid ah George Weah oo haatan ah madaxweynaha dalkaasi.